الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أصحاب تقالي كحرن بيجكيga Cabdullaahi Axmed Kulmiye Yaryaanka xulka qaranka Soomaaliya Cabdi Xafiid ayaa ku dhacay baaritaanka MRI-ga kaas oo la sheegay in da'diisa ka weyn tahay 17 sano jir. Ciyaaryahan Cabdi Xafiid ayaa si rasmi ah u dhacay baaritaanka MRI-ga taasi oo ka dhigan inuu matali doonin xulka 17 sano jirada Soomaaliya ee ka qayb gali doono koobka dhalinyarada qaramada qaaradda Afrika ee maalin Sabtida ka furmi doono waddanka Algeria. waxaa si rasmi ah loo cadeeyay ciyaaryahan garabka weerarka ee xulka qaranka Soomaaliya inaysan da'diisa ahayn 17 sano jir sida uu cadeeyay MRI-ga oo uu ka weyn yahay. xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa dalbaday cadeemo dheeraad ah maadaama baaritaanka qaybtii hore ee lagu marsiiyay magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho ay iskaanadu sheegeen in Cabdi Xafiid uu gudbay 5+ oo ahayd marxaladda ugu dambeysay inta aan la gaarin marxaladda 6aad oo ah marxaladda dhicitaanka. xiriirka ayaa sidoo kale dalbaday muuqaalada MRI-gii la saaray ciyaaryahan Cabdi Xafiid. Dowladda Turkiga ayaa lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ayaa ku eedeysay dowladda Turkiga inay ku xadgudubtay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya waxayna shaacisay inay ku ogaatay baaris ay sameeyeen khubaro ka tirsan qaramada midoobay oo loo xil saaray barintaasi. warbixintan ay qaramada midoobay ku sheegtay in baarayaasheeda ay ku ogaadeen in Turkiga uu Soomaaliya geeyay diyaarad hubeysan oo aysan la socon UN-ka. qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradahaasi ay yihiin droniska oo ay farsameeyaan shirkadda ay leeyihiin qoyska madaxweynaha waddanka Turkiga. waxaa kaloo warbixintan lagu sheegay in Turkiga uu magaalada Muqdisho soo gaarsiiyay diyaaradaha droniska 6 bishii December sanadkii 2021 iyadoo lagu daabulay 2 diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ee Airbus ee 400 mitir oo ay maamulaan ciidamada cirka Turkiga. sidoo kale waxaa Turkiga lagu dhaliilay in xogta iyo dirista diyaaradaha uusan la wadaagin qaramada midoobay kahor inta aysan ka howlgelin gudaha Soomaaliya taasoo sii xoojisay eedeymaha culus ee loo jeedinaya Ankara. dhanka kale dowladda Turkiga oo jawaab rasmi ah ka bixisay eedeyntan ayaa iska fogeysay warbixinta qaramada midoobay waxayna ku dooday in diyaaradaha ay geeyeen saldhigooda magaalada Muqdisho oo ujeedkoodu yahay inay ka qayb qaataan dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Turkiga ayaa haatan xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya waxayna tababar joogto ah siisaa ciidamada xoogga dalka ee howlgallada ka wada gobolada dalka. tahriibayaal gaarayo in ka badan 55 ayaa ku dhintay xeebaha dalka Liibiya kadib markii doontii ay saarnaayeen ee la degtay xeebaha waddankaasi. doontan oo ay saarnaayeen dad tahriibayaal ayaa ku sii jeeday dalalka Yurub taasoo si lama filaan ugu degtay xeebaha dalka Liibiya. wararka laga helayo dalka Liibiya waxay sheegayaan in ay goobtaasi ku dhinteen ugu yaraan ilaa 55 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka. musiibadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka halista badan halkaasoo kumanaan qaxooti ay sanado walba maraan ayagoo isku dayaya inay gaaraan dalalka qaaradda Yurub. hay'adda socdaalka dunida ee loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in musiibadan ay dhacday maalintii Salaasadii. doonta qarimatay ayaa siday ilaa 60 tahriibe waxayna ka shiraacatay xeebta magaalada Garabuli oo dhinaca bari ka xigta caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. hay'adda socdaalka ayaa sheegtay in 5 qof ay ka badbaadeen musiibadan kuwaasoo ay ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya ay keeneen dhinaca bari. ilaa hadda xog badan lagama hayo sababta keentay in doontan ay degto. Safa Maseli oo afayeen u hadashay OIM ayaa sheegtay in doontan ay degtay wax yar kadib markii ay xeebaha ka shiraacatay. sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ilaa hadda ay ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay soo saareen meydadka 9 nin iyo cunug yar. 5 qof ee la soo badbaadiyay ayaa 3 ka mid ah ay u dhasheen dalka Pakistan iyo 2 qof oo u kala dhashay Masar iyo Suuriya sida ay Safa u sheegtay wakaaladda wararka AFP. hay'adda IOM ayaa sheegtay in sanadkan oo kaliya ay badda ku dhinteen ilaa 537 qof oo muhaajiriin ah halka laga badbaadiyay ama safarkooda tahriibka laga joojiyay in ka badan 4300 oo muhaajiriin ah kuwaas dib loogu celiyay badda. waad ku mahadsantihiin la socodka warbixinada barnaamijyada iyo waxyaabaha xiisaha badan ee aan soo geliyo page-kayga Cabdullaahi Axmed Kulmiye.